dowlad goboleedka galmudug waxa uu noqonayaa maamulka saddexaad ee dhaqaajiya doorashooyinka Soomaaliya qoridda iyo qabanqaabada liiska xubnaha aqalka sare ee ka imaanaya dowlad goboleedkaas ayaa muhiimad gaar ah leh tir ahaan waa 8 xubnood balse xiise gaar ah ayay leedahay kuraastan oo ay isku hayaan inta badan qaybo ka mid ah foolaadka galmudug sidoo kale dhammaan musharaxiinta joonaysa jagada madaxweynenimada Soomaaliya oo uu ku jira madaxweynaha hadda xafiiska jooga ayaa isha ku wada haya dib ayaanu eegi doonaa shakhsiyaadka la hadal hayo ee kursiga doonaya in lagu wada qoro kuraasta buuqa badan harayn doono magacyada qoorqoor ku soo saari doona liiska musharaxiinta aqalka sare kuraasta aqalka sare ee galmudug sida muuqato durbo way iska sii caddahay inaysan la mid noqon doonin dowlad goboleedyada kale sifaha ay dheer tahayna waa in la yaqaano shakhsiyaadka hadda ku fadhiya miisaankooda siyaasadeed xagga uu jiro si cad oo aan qarsoodi ahayn xubnaha tartamayaana ay leeyihiin saldhigyo siyaasadeed oo ay codka geynayaan kursiga koowaad waxaa hadda ku fadhiya senator cabdi axmed duxulow laacibka kooxda waayo arag dhagdheer waa mid ka mid ah saaxiibada sida dhow ugu tashanaya xasan cali khayre geedi oo ay isku beel ka soo jeedaan dhinaca kale waa saaxiibka axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaa kula loolamaya kursigan wadaadka yuusuf cali caynte oo aan dab yar shidayn lana rumaysan yahay in garabsaad siyaasadeed uu la leeyahay laba kooxood ninka saddexaad waa cabdulqaadir jahweyn wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya xilligii xukuumadda badbaado qaran saamayn siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba leh haddana dadaal xooggan ugu jiray bilihii ugu dambeeyay kasbashada xilkan sida ay caddaynayaan xogaha aan helayna Axmed Cabdi Kaariye oo gudanaya abaalkii dhagdheer waxa uu ka shaqeynayaa in kursigan uu noqdo mid xiran oo waaye aragga 22 sano kursiga fadhiyo kula tartamo malxiis siyaasadeed oo isagu keensaday laakiin gudoomiyaha baarlamaanka galmudug waxa uu hore uga soo horjeestay warinta la xiriirta xiridda kursiga safarkiisii ugu dambeeyay ee Muqdisho warar ayaa sheegaya inuu jiro dhexdhexaadin uu geed fadhi u ahaa xasan cali khayre dadka yaqaana qoorqoor shaki kama qabaan in kursigan mar kale 4 sano uu cimaamadi doono dhagdheer kana reebi doono Sheekh Caynta iyo Jahweyn kursiga labaad waa mid xiise leh waxa deegaankiisa iska leh magaalada Cadaado halka uu ka yimid Axmed Cabdi Kaariye waa kursi laftirkiisa ku noqonaya rul siyaasadeed oo lahankeeda uusan si fudud isaga damin doonin xataa haddii la dhaafo waqtiga siyaasadeed ee hadda taagan waxa hadda ku fadhiya Abshir Maxamed Axmed Bukhari gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare waa xubin sare oo ka tirsan xisbiga madaxweynihii hore Xasan Sheekh hore uga yimid daljir saamayn siyaasadeed leh laakiin waxa uu muusanayaa dheecaankii ka soo horjeesadkii doorashadii qoorqoor oo hadda dhadhan kale u samayn doonta waxa kula loolamaya Kamaaludiin Daahir Xasan oo loo garanog yahay Kamaal Guutaale horey musharax ayuu ahaa doorashadii qoorqoor waa la taliya siyaasadeed xilligan mar kale waa xubin ku matalaysa madaxtooyada galmudug guddiga farsamada doorashada heer federaal aragti ahaan siyaasadeed waa wadajir iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo aan yeelan doonin dooq labaad ilaa uu xaqiiqsada ma ahana in geed fadhigoodu uu haray kaalimaha saddexaad iyo afraad magacyada doonaya isla kursigan inay ka soo muuqdaan waa Daahir Cabdullaahi Kadiye iyo General Saadiq Cumar Xasan John labaduba loolan ayay ka wadaan dhuusamareeb ayna doonayaan inay liiska ka soo muuqdaan kursigan waxa uu ku xadfanaan doonaa oo ku xirnaanaya kursiga golaha shacabka ee nambarkiisu yahay 248 oo isla kursigan ku xariirsan ilo xogaga leh waxa ay daha ka rogayaan in qoorqoor uusan doonayn Bukhari una samayn doona sabab kasta oo booskan ku dhaafin karo xataa haddii ay timaado kala bedelida kuraasta isla kursigan waxa ku sii xadfan Siciid Siyaad Shirwac wasiir ka tirsan xukuumadda qoorqoor 2016 wixii ka dhacay Cadaado hadday soo laabtaan يوم القيامة dhacay Soomaaliya kursiga saddexaad waa mid kale oo aan dab yar shidayn waa kan ugu xasaasiyada badan lagana leeyahay koonfurta gaalkacyo laakiin waa kan ugu fudud qoridda qalinka qoorqoor ayaa la leeyahay durba waxa hadda ku fadhiya Janaal Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid waxa kula loolamaya madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf nabadoonkii galmudug mideeyay nabadda gaalkacyana doorka weyn ku lahaa waxa uu tirsanayaa dhowr dhibaato siyaasadeed oo ka soo gaartay galmudug iyo 2016 sida uu ku waayo kursiga aqalka hoose oo wali u muuqato hagardaamadii uga timid Cabdikariin Xuseen Guuleed ninka saddexaad waa Ukudun Ximaaye waa magac ku cusub siyaasadda waa nin dhalinyaro ah laakiin bilihii la soo dhaafay ayuu suuqyada cirtoogtaha ka gatay hu fara badan oo uu geystay koonfurta gaalkacyo haddana waxa uu ku jiraa loolan siyaasadeed
waxaan ogaanay qoorqoor inuusan ka leexan doonin waddadii cabdikariin iyo saaxiibbadiisii ku sameeyeen axmed ducaale geelle xaaf oo uu mar kale doonayo kursigan inaan lagulaba tartamin cabdi xasan cawaale qaybdiid uuna dhaco tartan la mida kii senatar fartaa kaga soo baxay kismaayo xaaf oo dhowaan hadalkiisa sii horumarsadayna waxa uu muujiyey inuusan asxaan badan oo siyaasadeed samayn doonin haddii ay dhacaan ficilladii 2016 cabdi qaybdiid oo soo laabtana codkiisa iyo loolankiisuba waxa uu isugu geyn doonaa sidii uu madaxweyne ka yimid koonfurta gaalkacyo ku imaan lahaa fiilla soomaaliya faalayaasha siyaasadda galmudug durba waxa ay hoosta ka xariiqayaan in qoorqoor libintiisa siyaasadeed ay ku jirto inuu labada hoggaamiye ee xaaf iyo cabdi qaybdiid isku da'yo si ay ugu kala baxaan loolanka baarlamaanka laakiin taasi kama muuqata indhaha qoorqoor ayay koox kale leedahay kursiga afraad waa kan uu ku fadhiyo cabdiwaaxid goonjeex kana soo jeeda caabudwaaq waxa ay caddaynayaan ilo wargal ah in goonjeex hadda u wareegi doona aqalka hoose kursigana beelaha reer siyaad xuseen iyo celi ee beesha side ay laba midkood qaadan doonto laba nin oo dhallinyaro ah ayaa ku loolamaya ilaa iyo hadda sida liiska ay ugu soo bixi lahaayeen laakiin waxa ayna jirta fursad kale oo xagga gabdhaha ah taasoo qoorqoor uu maanka ku hayo waxayna u badan tahay inuu ka talageliyo saaxiibkiisa abaalka ay isku hayaan ee cabdishakuur cali mire mid ka mid a saaxiibbada dhow ee farmaajo kursiga shanaad horey waxaa ugu fadhiyey senatar dhegey oo ka mida kooxda waayo arag saaxiibbada qoorqoor balse hadda waxa uu doonayaa inuu qaado aqalka hoose ama golaha shacabka kursigiisa waxaa lagu soo saari doonaa sida ay xoguhu caddaynayaan xasan kaynaan xalane oo ah hadda xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug sidaasoo kale laba ruux oo kale ayaa iyana kula jira tartanka laakiin kaynaan ayay saaran tahay doodda ugu xiisale ee ah inuu kursigan ku soo baxo kursiga lixaad waxaa hadda ku fadhiya senatar duniya waxayse loolan adag kala kulmaysaa mursal gacamay oo saamayn ku leh galmudug ka soo jeeda xeraale waana kursi loolankiisu adkaan doono haddii kala wareejin xagga beelaha ay timaaddo laakiin qoorqoor qoondada haweenka ayaa caqabad ku noqonaysa mar kale kursiga toddobaad waa kan beledka dhuusamareeb waa mid ka mid a kuraasta ugu xasaasisan wakhtigan waxaa ku fadhiya senatar jawaahir waxaase doonaya xubno ka socda ahlu sunna gaar ahaanna garabka abaalka ku leh qoorqoor oo kale ah axmed cabdisalaan oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha xukuumaddii nurcadde safiir etoobiya wasiiru dowlaha amniga ee hadda xukunka jooga farcaan cali axmed ee dowladda federaalka ah iyo cabdisamad macalin maxamuud oo uu dhalay wadaadkii hoggaaminaya ahlu sunnadii mar xukumaysa gurceel iyo dhuusamareeb laakiin qoorqoor daraaddood xukunka lagu dhaafiyey lagdin siyaasadeed xoog badan ayaa ka dhici doona kursigan haddii qoondada haweenka bannaanka lagu dhiga jawaahir saddexda siyaasi ee isku beesha ka soo jeeda ee kala ah farxaan axmed iyo cabdisamad gudahooda ayaa iswajihi doona waalan loolan xiisihiisa leh ugu dambayn kursiga siddeedaad waxaa hadda ku fadhida senatar zamzam daahir wararku waxay caddaynayaan inay mar kale doonayso inay ku soo laabatay liiska laakiin dhinaciisa waxaa loolan adag wada cabdulqaadir macallin nuur ninka hadda haya mawlaca macallin nuur ee muqdisho kaasoo ahaa martigeliyihii shirkii mudullood waa xubin saamayn badan leh qoorqoorna dadaal badan ugu jira ugu yaraan liiska inuu ku soo daro waxay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka Transfer Galaxy waxay iga caawisay inay si kan xiriir fiican aniga ee asxaabtay iyo waalidkayga Transfer Galaxy waxaan u doortay sida uu u sahlan yahay iyo sida uu u dhaqso badan yahay